السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Soomaali weynay waan idin salaamay. Magacaygu waa Professor Maxamed Xuseen Cabdille ee ku nool dalka Kenya. Professor wax ka yaqaano ama wax ka dhigayay waxna ka baaray virus muddo 15 sano ah wadanka gudihiisa iyo dibaddiisaba. Adduunkii wuu yaaban yahay. Masiibo ayaa dhacday. Masiibadan waxaa keenay coronavirus. masiibadii ugu dambeysay ee noocan ee dhacday waxay ahayd 1918 waxa uu ahaa Spanish flu wuxuu dilay 50 milyan. mid u eegaya hadda socota dhibaato dhacday. haddii dhibaato dhacday waxaan ogsoonahay Soomaalida inay meel adduunka ka joogaan. dadkii Soomaali wax u bartay waa inaga adduunka kama madhin. Soomaalida adduunka ku nool hadda waxaa lagu qiyaasaa 40 milyan. meel walba aad joogtaan farinteedu waxaa weeyaan viruskan daawo ma laha. viruskan ka hortag ma laha. viruskan tallaal ma laha. viruskan habka lagaga badbaadi kara waa in ilaahay la tala saarto ee laga xararo guryaha laga galo afka laga xirto gacmaha la iska dhaqo ummadii aan lagu soo bixin nin walba gurigiisa uu ku jiro ilaa isaga uu ka baganayo. adduunkii wuu yaabay. The scientists, dhakhaatiirtii, dadkii pharmacist ahaa, dadkii qalabka haystay, lacagta haystay, technology-ga haystay way yaaban yihiin. Chinese-ka hal bay kaga badbaadeen in viruska markii uu bilaabday isla markiiba ay joojiyeen isu gooshinka baabuurta magaalo ka magaalo dadka inay isu tagaan dhulkiina meelihiina la buufiya ilaa waqti intii way ku guuleysteen. anagu haddaanu Soomaalina dad muslimiin baanu nahay waxaa jirta annaga aanu isticmaalno. anigu idinku soo kordhin maayo wax cusub waa wax annaga hore u isticmaali jirnay. waxaan ogsoonahay baaritaan badan adduunka waa ka dhacay oo ku saabsan malabka saafida ah viruska wuu dilaa shaki kuma jiro. liinta la miiray oo saafida ah viruska way dishaa. sinjibiilka viruska wuu dilaa waa baaritaan. xabad sawdada viruska way dishaa. toonta viruska way dishaa. xamarta viruska way dishaa. intaan haddii la isku geeyo shaki kuma jiro in viruskaas meel la saarayo. laakiin waxaa ka horeysa in isticmaalka inta aan sheegay hore aan u isticmaali jirnay aan haddana sii badino oo aan sii xoojino. mar difaaca jirka ayay xoojiyaan. viruskana waa la yaqaanaa difaaca jirka ayuu baabi'iyaa. ninkii ka badbaada maanta waxaa la ogsoon yahay in difaaciisa jirka uu aada u sarreeyo. anagoo ogsoon liinta iyo malabka iyo waxyaaba aada u dham inay gaas keenayaan ee dadka qaar gaas ku kacayo. laakiin haddina waa lagama maarmaan isticmaalitaanka inta hadda aan soo sheegay adduunku uu ogsoon yahay in ay viruska dilaan. xabad sawdada iyo malabka iyo liinta iyo sanjabiilka markii qofka uu cuno kuleelka jirkiisa korba u kaco qofka dhidid baa ka yimaado. waxaa keenayo inay yihiin analgesics oo ah xanuun baabi'iyaal ama xibnaha ama dhabarka ama meel walba inay mataqaana u roon yihiin oo fiican yihiin. markaan intuusan viruskana soo gaarin intaas haddaan badsanno oo aan isticmaalno aan waxaan idin dhihi lahaa waxaad hore u isticmaali jirteen aan idinku sii xoojinayo aan idin leeyahay inaad sii kordhisaan aad bay u wanaagsan tahay. adduunku waxaa la sheegay in la isticmaali karo hydrochloroquine oo ah daawada malaariyada. hydrochloroquine ma disho viruska laakiin waxay reebtaa virus inuu jirka ku sii fido in unugyada uu sii galgalo ayay ka reebtaa. waxaa la sheegay in azithromycin la isticmaalo. azithromycin waa antibiotic caadi ah oo antibacterial ah. laakiin waxaan ogsoonahay asbuuca ugu horeeya markuu qofka virus ku dhaco asbuuco kala intuusan qofka dilin ama qofka daciif uusan ka dhigin in bacteriana uu kusoo dhumanaya meesha oo infection asna uu keenayo. viruskana sanbabada ayuu dilaya. sanbabadii waa meesha laga neebsanayo. qofka uu ku dhaco sanbabadu kaga dhacaa. marka uu sanbabada ku dhaco wuxuu u sii gudbaa kiliyaha, beerka, maskaxda, caloosha, shuban hataa wuu keenaa. intaas
qofkii difaaciisa jirka uu u sareeyo oo isticmaalay intaan hadda sheegay fadlan isticmaala intaan idin sheegay waa dhaqankeena waad ogsoontihiin please meel hadda mataqaanta loo carana ma jirto dunida koowaad ayaa hadda gacanta ka tagtay markii la helo daawadiisa waa goorma waa maray xeeri fadhaa kala dhaceen markaan gurigeena ku xirnaada hawsa gooshina meela aad tagtaan ayna jirin cadaanku aad buu u laayay kow horta dhulkii baa qabow fayraskana sidiisaba waaba taqaanin in herga markuu idinku dhaco waa taqaanin in wax kuloo la isticmaalo qabowgii waxaa isku soo yimaaday iyo viruskan oo aan la garanaynin meeluu ka yimaaday sababtu u yimaaday waa waxa ilaahay uu gacanta ku sito cilmiga aanu leenahay PhD preventive medicine haddaan sito ma aha in isla markiiba wax soo saari karo waxay u baahan tahay maskax waxay u baahan tahay fikir laakiin maskaxda iyo fikirka waxaa ka horeeya ka hortag iyo is-ilaalin intii uu dilo annaga ilaahay nagama dhigo inta badbaado allah naga dhigo ilaahay aan ku xirnaano ilaahay aan ka baqno aanu iscafino viruskan aan ka dhuumanno intaan ka dhuuman karno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh